gudoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe oo wareysiisay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrintan ku saabsan Imaaraadka Soomaaliya iyo Somaliland iyo sidoo kale dad magac leh oo Somaliland ku xiran kuwaas oo sababaha loo heestaahay ay tahay in Muqdisho ay tageen oo ay Hargeysa ku laabteen waxa dadkaasi kamid ah Nimco Abwaan Qorane idinka oo dadka Soomaaliya bayladii ku tabatay oo shisheeye la fadhiyo maalin kasta khataaraga soo sheegaya had iyo goor Allah Soomaaliya laga sheegay dadka nabadda samaystay mashaariicda samaystay dowladda samaystay iyo xanaanteedu raadiyaan hadduu nafidaro inta ku jirtaana idinka ka bixinaysa magaalada talaaqalka ama xajis qofiina ninka hadii ee wasiir dawladii wax qalada ku hadal iskaan baa jiray dawladii xasan sheekh iyo amaga iskaanka uu jiro waa shii ama Istanbul ku galay ama ka mid ah inaan wixii horumar aan la siyaasadeenin ayaa haddana xasan ku tafsiiriyay shirkadii qaabsan ka daabta wala fikra waa gartay laakiin wuxuu saxay ma jiro waxa kala saxay ninka sultaanaya wasiirka xaajada Somaliland baa kala saxay waaye waxa la booniyo oo laga doorashadana maaha mudana waxa ma inaan boonin anagu wax colaada iyo dhibaatana ma aanan sheegin waa wadaano kumaadka waxa doonaysa inay yar baa la helay boqolaalbari waxa lagu dilaa intaas oo qofka diyaarsanaya mawduucaas waa geli doonaa taa wax baan ka weydiin doonaa marka iska taabto waxaan wadaano Somaliland ka shaqeeya waaye Somaliland wasiir dawlaha arrimaha dibadda ee Imaaraadka hadii aad dhageysatay hadalkiisa waxa uu yiri qonsuliyadna kuma lihin wakiilana nooma joogaan safaaradna kuma inaan lihin heshiiskana dawladda dhexe Soomaaliya la galnay marka idinku huban yahay heshiiska la gasheen sideebo ayaa idin saxiixay waxa ku yiri anaga safaaradna kuma leh qonsuliyadda kuma leh kala goynta kama shaqeeyaan idinka idila joogaan lacagtii oo wax kasiisii anagu bayskaasaan ugu horreeyay DB waa shirkad iyo waa shirkad DB shirkad adduunku dhan leeyahay Imaaraadku qori male waa daacadii ila la taageerti ka samaysan dawladku waa shirkad laakiin dawladda Imaaraadku waa urtooda shirkad imanka beedka ka hor xiriir ma lahayn oo wax ku jabana laakiin anaga Soomaali kala samay anaga kala samay anaga ku keenay laakiin maanta anaga kastamon inay ma qaadkan nabadgelyo kamaana maaha Faysal Cali Waraabe in Muqdisho laga saxiixay oo dawladii Xasan Sheekh ay ogolaashaheeda dekada berbera lagu bixiyay marunba waxa أنا لو يمكن دوريتاتي إلى ما ولما نقول كم سوق بس بدون شيء واي حتى الشيء ما يرجع دوريتاتي يروح مجيني هذا حتى شاهد مجيني كلامك ممرع أخلي أنا يتعامل هنا ما وحنا حبنا ندي واحد بيه إمارات كم وكيل له وجه Somaliland وكيلون كلي أنا جا وحنا وكيلون هذا وكيل هذا هو بريال ما يدرس جارية دوما حسيت لكني واي وزيرك waxa uu yiri Soomaaliya wasiirka waxa uu yiri Soomaaliya waxa uu naqaana hal dal madax banaanida iyo sharaftoodana waan doornay soo sax maahan mar حتى لو قلنا ثلاثة شهور فرموا وحنا ممكن جوجات يدي كتابة حتى قالوا يقانا يعني يدي كتابة كلا يوقف هاي سما يعقوب أمانة إن هل كان الله يدور كتير نوع خايف ترى الله ما في حاجة كذا ولكن لما تذكر الحديث شكلات كثير الجوجات شوف بدحونا الليل وحلا إذا ما تسمع مجال مكتوب كشرع يعني حالنا ما تيجي بدحونا بتيجي أيه أنا كنت فاهم ده طبعا هذه جادي في واحد من الصومال ولا بتشرب أنا هنا واحد كريان وأنا مركب وكم خبرة تلاقي الأرضية كبرى وعن كهرباء وأنا
waxay iga warantaa farmaanka xalanaha tabakowde xalanaha ku diyaarta farmaanka tan xalana iyo taaha noo dambayso mawduucaas oo ku siin doona jawaaban ka siin doona iyo fursad hadii la yiraahdo waxaan ka rabaa inaan ku weydiiyo aniga dawladda xawaha Soomaaliga jirka mid jirta ay sheekeen si caruurta ay u sheekeen berbera iga waran hadda berbera iyo saldhigi shaqadii ma socota waa ku soo gabagabeynaya mudan waxaan rabaa gabadhan nimcaha xiran iga waran nin siyaasi oo caano anaga xidna waa ina fiiriye waxa kale toban aan isku dilaa caruurtina lagu iibiyaa inta la iibiya lagu qashaaye xalane lagu qala xalama la qalan maayo waa gurigeedii reerkeedii joogta xagebada la mariyay oo sharci baa lagu helay waxa uu bil ordootiina ka taliya caruurtina lagu iibinaya suuqada la furtay kaliya laga baxay xalal lagu qalayo kuwa ka tali qadiyadooda mid ka tahay waxaan ka rabaa muqdisho tagtay inaad dad u xirtaan oo muddo xabsi u gelisaan ma saxba وانا اقول وين بالله او حسن بالحويناحي وين بالله وقف الصومالي واحد خايمه قف كتري كده قف وتي كده لكن ما كان توفرتو صوماليين iyo waxa oo jirino ka habasho Soomaaliland haydo إذا كان مدحدين Soomaaliland kamid ah amaana madaxda kale wadamada diriska sawir la soo gala hambaliyeeya maxaa dhib u ku jirtay Soomaaliya hambaliyeyso يا حتى لكن أنا يدك العائلة ما وإيه الكيدي والصومالي لو يسكت حنا معنا لكن soo aragti ma la qofku xur maaha aragtida iyo madax banaanida qofku soo xur maaha aragtiis ma dhiiban karo war sharci oo shaqadina xorriyadu waxa leedahay limit beleeda ma ina khaain oo dawladda ka jirta ma حاجاتي كدوك في iska ilaatiya kulliyo dalkiina hagaajinta dadka dalkooda hagaajinta way kashadeene bayadii magacii Soomaalida ahayd intaasoo dawladda la jooga intaasoo ciidamada la jooga maalinka dadka la waayo yaa la yiraahdaa shabaab bay ahayd dad masaakiina dalidooga ciidamada fadhiya dad waxay fadhiyaan Soomaaliya ay idin fadhiyaan haysa maxaa dadka nabadda diinta ugu dambeyn loo boqol ku bana la fadhiyo reer Soomaaliya ma eeba wala leeyahay meeshii nabada wala leeyahay ugu dambeyn Faysal Cali Waraabe Soomaaliland horumarkiina iyo barwaaqadiina cid kasto way qiraysaa wayna ogtahay laakiin waxa rabaa inaan ku weydiiyo dadka waxay leeyihiin xuquuq iyo waxay leeyihiin madax banaani in aragtidooda ay cabiraan ceeb maahan adduunyada dhanna way ka dhacdaa dad badan xabsiyada idinku jira oo Muqdisho tagteen u xirteen ma laga yaabaa inaad dib ugu laabataan sharcigan ama xeerkan aad codsanaysaan Muqdisho qofkii taga waa dambiile شكل كبير هو شكل دراسة ما ولا غلط وشو تلقوا معه وقالك هو الشقيان يقول لك الشقيان واحد الشقيان كبيرة تحتل اللي بتشوله يقول ما إحنا لكن قفكم وديه الشرق بعد كده وما أنتوا أتوقع ما كذا حرين واحد حين ده وردول له حتى لقى قفك قرن حميال يتعال بدنا وقع حصل منه أنا ولا ما هي ما مطلوب شكلها اللي بدي تريد هو يعمل حلقة يعني لكن قف خلطمي بسرعة على الخيرية Faysal Cali Waraabe ayuu kaasi haa dhageysta